السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت كرامة يا احترام كبدن فرحدي عافيمات تامة يا ندير رجينا مقال كان وحو قصيا أريمها قويسكا بهذا قويسكا يلا معناها يحالة دودة قوني دا أيوكا هالليا فلن هديو كسو قارو لسي وداق عدة وسيدة قوني دا قصيو أرنتا كوبان يعني كسو قادان دونو وحال يراهدا moral obligation waa waajibaad aan shaxeen oo kugu waajibinaya inaad ka ilaaliso waxyaabaha qaar caruurtaad dhasheen ubadkaad dhasheen inaad waxyaabaha qaar ka ilaalisaan mowduucan marka laga hadlayo waa mowduuc aad u ballaaran marka reer galbeedka iyo dadka aan muslimiinta ahayn la joogo aad buu gudahooda xasaasi uga yahay waayo waxa ka dhashan cuqubooyin iyo dhibaatooyin waaweyn haddii ay ilaalin waayaan ilaa haddana aad iyo aad bay arrintani ay dhib iyo khatar ugu noqotay qoysaska adduunka oo dhan gaar ahaan weliba dadka aan muslimiinta ahayn ee ka dulbooda qodobkan laakiin innaka intay naga qusaysaynu ku soo dhowaanaynaaye waajibaadka anshaxeed ee loo baahan yahay lamaanuhu inay ilaaliyaan waxa weeyaan in ay ka fogaadaan in caruurtoodu ay aragto iyagoo baashaalaya istaabanaya isisalaaxaya gogol iyo galmo samaynaya ama mararka qaar caruurtoodu inay aragto iyaga oo taataabanaya xubnahooda taranka ama inay aragto dhawaaqooda ay maqasho dhawaaqa iyo codka ay sameeyaan marka lamaanuhu gogosha ay samaynayaan ama marka ay gogosha kala gudanayaan ama inay markaa xilliga ay caruurtu ay la hurudo ee guri ay ku wada jiraan ay sameeyaan arrinta noocan markaas xilliga guriga caruurtu ay kugula jirto ama ay kugula hurdaan laba qaabba way u dhici kartaa lamaanuhu lamaana iska dhowhan inay yihiin oo caruurtiyo soo jeeda ay hawshooda iska galaan taasi inta badan common maaha ama sida caadiga ma dhacdo laakiin waxa dhacda mararka qaar caruurtii oo huruda oo gogosha ay sameynayaan inay ku toosaan kadibna ay ciyaarta barta ka daawadaan iyagoo go'a wajiga ka qaadaya ama markaas arkaya arrinta noocaas waa arrin uu kugu waajibinayo anshaxu inaad ka fogaato haddii laakiin arrintan ay arkaan waxay u arki karaan wax markaas iyaga ka maqan oo inay xilliga caruurnimada ay hawshan ay ku bilaabaan ayaa dhacda marka inaad ka fogaato waa muhiim ama in laga fogaado waa muhiim waxa kaloo iyaduna muhiima in caruurta dhex iyagoo ag jooga la isku taataabto la isku salaaxo la isku baashaaliyo taataabasho iyo salaax ay dareen ku jirto yacni labadii waalidku ay isku hamoonayaan ama dareenkoodu uu kacsan yahay laakiin in ay arkaan inkoo si fiican u wada hadlaya si fiican u wada dhaqmaya jacayl isku muujinaya wax dhibaato ah kuma jirto laakiin waajibaadka anshaxu waxa uu kugu waajibinayaa inaad ka ilaaliso arrin kasta oo muujinaysa in dareen isku kiinhaya ama samaynaysa in dareenkiinu kaco oo halkaa markaa hawshu ay ka bilaabanto qodobkani waa qodob aad u sal ballaaran marka dhinaca kale la joogo dadka aan muslimiinta ahayn haddii ay ilaalin waayaan waxa dhaca in caruurtu ay ka shakido waalidka dhalay gaar ahaan weliba aabbaha waxa dhaca hooyadu hadday soo geliso guriga rag badan ama hooyadu saaxiibo badan haddii ay yeelato dadkan inta badan gaalada ahi ama dadka inaga diinta duwan qaar ka mida haweenku waxa ay sameeyaan iyagoo la qabo inay saaxiibo ay samaysato oo waxa laga yaabaa waxa ay aaminsan yihiin iyo diinta ay aaminsan yihiin inaanay uga diidan inay saa sameeyaan laakiin maxaa ka dhasha cawaaqib xumo aad u weyn baa ka dhasha hadhowto marka ilmihii ay arkaan hooyadood oo habeenba nin u imanayo waxa dhaca inay yiraahdaan aabbahana dhalay waa kee boqol nin baan kugu aragnay
ninka annakana dhalay kee weeye raggan marba guriga soo galaya ee ka baxaya kadibna caruurtu hadhowto inay maxkamada ay la gasho hooyada lafteeda oo markaa DNA-dii la baaro oo ay tiraahdo raggan ka dhalay ka ay ku sheegayso ay caruurtii dhahaan nama dhalinba ee si aan u aamino waa in DNA-da la baara oo sidaa markaas ay ku confirm gareeyaan inuu dhalay inaanu dhalin ninka ay ugu sheegayso hooyadu inay caruurtaas u dhalayn oo aanay aaminayn sababta ay u aamini waayeen waxa weeyaan wixii ayaa waxay noqdeen waxay arki jireen markii ay yaryaraayeen nin markasta u imanaya oo ka baxaya mid kale oo imanaya kadib waxay ku confuse garoobeen aabaha dhale rasmiga ah ka uu yahay marka qodobkan marka laga hadlayo waa qodob ballaaran oo qoyska dhinac kasta ka saameynaya laakiin innaka inta inaga qusaysa waxa weeyaan lamaanaha isqaba inay caruurtooda ay ka ilaaliyaan ficilada sameynaya in markaa caruurtaasi ay dareen ku qaadato gaar ahaan gogosha baashaalka iyo isfahanka dhinaca marka la taagan yahay xadda xilliga habeenkii inaad looga taxadaro xilliga qawoonada inaad looga taxadaro oo xilliyada ayaa jirta guriga aan la gali karin oo caruurta laga ilaaliyay oo aanay totally gali karin intaas qodobka markaynu kaga tagno qodobka labaad ee isaguna loo baahan yahay caruurta in laga ilaaliyo waa conference walamaanaha oo kala cad goosanaya ama is challenge gareynaya oo ficil dhex yaalo oo muran dhex yaalo oo qayla dhex taalo oo isqabsanaya oo hadallo kulul isweydaarsanaya oo qofka kale doonaya inaanu lib ka helin oo dood adag oo kulul oo abuuraysa markaas nacayb iyo xumaan iyo cadaawad ay ku jirto ay dhex marayso oo caruurtuna ay dhageysanayso arrintaasna waa mid laga ilaaliyo caruurta oo shuruucda qoyska marka la baranayo arrintaana waa laga taxadaraa oo caruurtu haddii ay arkaan deegaan hostile ah oo labada waalid ay markasta ku dirirayaan ay ku dagaalamayaan iyagana waxa ka tagta xurmada iyagana waxa ka tagta naxariista iyagana waxa ka tagta nacayb baa ku abuurma labada waalidba way nacaan waxa kale oo dhacday hadhowto markay iyaga qudhoodu ay guursadaan inay qaabkiyo kale u dhaqmaanba oo ninkuna uu xaaskiisii sidii aabihii ula murmu jiray ula murmo haweenayduna ninkeeda ay ula murantay sida aabaheed hooyadeed ay aabaheed ula murmi jirtay oo markaa qoyskii ay community-gii kale iyo bulshadii kale oo dhan ay saa wada noqoto kadibna furniinkii uu ku bato bulshadii oo dhanba ila waa dad wixii kale hidaystay oo halkaasaa dhibtu ka timi xilligii caruurnimada deegaankay ku soo barbaareen gurigay ku soo barbaareen waalidkii ay ku soo barbaareen ayay la yimaadeen iyaguna markay reerihii dhisteen oo ay guursadeen ayay iyaguna iskula yimaadeen dhaqankii iyo dabeecadii iyo markaa curfigii ay ku soo dhex barbaareen kadibna furniinkii iska bato oo kala tagkii iska bato oo caruurtii markaas dayicii uu bato labada arrimoodba waa laba arrimood oo loo baahan yahay inay lamaanuhu ay ka fogaadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.